السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسمي دولي مال هو ذا أو تاريخ عصب دقي شنتي أغوص لبدك يستغالي تومانكي Funky Sparta has become the first person to cross the English Channel on the Flyboard. Nin Francis oo magaciisu yahay Funky Sparta ayaa noqday ninkii ugu horreeyay ee ka gudba kanaalka Ingiriiska ee kala qaybiya dalalka Faransiiska iyo Britain isagoo ka duulaya qalab cusub oo isagu sameeyay. qalabkan oo qofku isku rakibayo isaga ayaa waxaa loo yaqaanaa flyboard waana markii koowaad ee taariikhda la sameeyay wuxuuna ku jiraa xilliga tijaabada. waxa uu ninkan duulay masaafada 30 kiiloomitir waxayna ku qaadatay 22 daqiiqo. duulimaad loo weeciyay sheekaysina kala shakiyay masbaaji duulimaad Sacuudi Dubai maraaci lahayd duulimaad hawada ku soo jiray 19 saacadood. waxaan sameynay qalabkan 3 sano ka hor ayuu yidhi haddana waxaan ka gudbanay kanaalka Ingiriiska tan iyo intay tahay taariikhdii in kale taas aniga ima taalo waqtiga ayaa shay doonaa yiri Master Sparta. dhibka ugu weyn ee hawada ku qabsanaya ahaa sidii uu boorsooyinka shidaalka u kala bedelan lahaa. inta uu duulimaadka ku jiray waxaa heerar socday 3 diyaaradood oo ku qumaatay u kacaa. sanadkan xisku Bastille Day ayuu soo jiray dareenka dalka Faransiiska iyadoo wasaaradda gaashaandhigga ay shirkadaasi ku maalgelisay $1.4 milyan oo ay ku horumariso wax soo saarka qalabka duulimaadka caynkan ah oo kale oo halkii qof adeegsan karo. dowladda Faransiiska ayaa jeclaan lahaayeen in qalabkan ay u adeegsadaan goobaha dagaalka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.